بسم الله soo dhawaada saaxiibayaal maxaa ka socda gobolka Minnesota oo ah gobol ay degan yihiin dad aad u badan oo Soomaali ah wax ka socda howlgallo waaweyn ee wadaan ciidamada ICE kuwaas oo qabanaya dadka sharci darrada ku soo galay si la sheegay laakiin ataagaya dadka madowga ah dadka carabta ah iyo cid kasta ay u arkaan inuusan cadaan ahayn xitaa Mexico duuyahay waxay dileen laba qofood waxay dileen haweeney iyo nin kalkaaliye caafimaad ah taasoo kicisay bulshada Mareykanka ayaa aad u xanaaqday oo xuquuq badan kicisay kuna tilmaantay ICE inay isticmaalayso awoodii sharciga ahayd mid ka badan gudoomiyaha gobolka iyo sidoo kale duqa magaalada Minneapolis Chico Fury ayaa ka hadlay arrintan oo ku tilmaamay sharci darro inuu ku kacay madaxweynaha maadaama ciidamadan uu siiyay awoodii loogu talagalay mid ka badan kuwaasi oo qalaasi amniga sameynaya magaalooyinka waaweyn ee gobolka Minnesota Congress-ka Mareykanka xuquuq badan ayaa ka jira sidoo kale war soo baxay oo cadeynaya in shaqada laga joojiyay intuu hogaaminayay ciidamada ICE ee la yiraahdo Gregory Bofino markaasi oo madaxweyne Trump xilka ka casilay maadaama xuquuq badan uu ka sameeyay maxalida inta howlgalka socday laba qofood oo muwaadiniin Mareykan oo cadaan ah ay ku dhinteen waxa leeyahay Trump markani wuxuu dareemay in culays weyn uu ka soo wajahayo gobolkan maadaama uu markii hore awoodiisa uu kaliya u isticmaalay laakiin hadda uu dareemayo culays weyn inuu halkan uu ka soo socdo wuxuu aad Trump marba ugu dhagan yahay Soomaalida iyo gabadhan la yiraahdo Ilhan Umar soo ku tilmaamay Ilhan Umar inay markay ka imaanayso Soomaaliya ayna wax lacag wadin haddana ay lacag 40 milyan ka badan ah ay haysato meel ay ka keentay garan maayo lacagtaas ilaahay sidii wanaagsan anaga nooga dhigo maadaama dad Soomaali ah oo lalaheena dalkeena waxtar ay halkaas ku sugan yihiin dhibaatana ilaahay ka dulqaado sidoo kale muslimiinta ayaa si gooni loo ataagay ay leeyahay ilaahay khayr ha ka dhigo insha Allah